kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub muuqaalkeenna waxyaabaha aynu ku soo qaadi doonno waxaa ka mid ah lacagaha marka ay heli doonto kooxda caawa ku guulaysata tartanka koobka UEFA Super Cup oo ay ku ballansan yihiin kooxaha Real Madrid iyo Frankfurt waqtigii uu bilaaban lahaa koobka adduunka oo isbedel lagu sameeyay kana soo hormaray waqtigii markii hore la qorsheeyay waxaan sidoo kale eegi doonaa Frenkie de Jong oo markaasi ku sii jeeda horyaalka Premier League Ingiriiska iyo kooxda markaa nasiibka u yeelatay in ay gacanta ku dhigto xidiga kooxda Barcelona waxaan eegi doonaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga xidigaha ee wargeysyadu ay qorayaan si goosgoos ah ayaadna u daawan doontaan saaxiibayaal balse intaanan sii guda gelin waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan siina gudbisaan haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad na soo booqato waxaan ku leenahay soo dhawow oo subscribe inagu dhiirigeli mahadsanid aynu ku horreynay saaxiibayaal isbedel ayaa lagu sameeyay waqtiga uu bilaaban doono koobka adduunka ee lagu qabanayo waddanka Qatar xilli 3 bilood oo kali ah ay ka harsan tahay in la baasto koobka adduunka xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa isbedel ku sameeyay waqtiga uu bilaabanayo koobka adduunka ee bisha November lagu qabanayo waddanka Qatar waxaana markaasi la soo hormariyay lagana soo hormarsiiyay xilligii loogu talagalay ee markii hore la qorsheeyay tartankan waxaa hore loo qorsheeyay in maalinta Isniinta ah oo ay taariikhdu tahay November 22 lagu daah qaado amaba daah laga rogo isla markaana lagu furo dalka difaacanaya koobka qaramada qaaradda Afrika ee Senegal iyo waliba xulka qaranka Holland oo markaa ku wada jira groupka A hase yeeshee FIFA ayaa hadda isbedel ku sameysay jadwalkii hore waxaana ciyaarta koowaad lagu daah qaadi doonaa dalka martigelinaya tartanka Mondiyaalka adduunka ee Qatar iyagoo markaa la ciyaari doona dhigooda Ecuador oo markii hore ciyaartoodu ay ka dambeysay tii aan hore u soo sheegnay ee Senegal iyo Holland waxa kale oo FIFA ay hal maalin ka soo hormarisay waqtiga la bilaabayo koobka adduunka ciyaarta Qatar iyo Ecuadorna waxaa la dheeli doonaa maalinta Axadda ah oo ay taariikhdu tahay 20 November isbedelkan ayaa la hordhigi doonaa shirka FIFA ee dhawaan qabsoomi doona waxaana Infantino uu u gudbin doonaa xiriirada qaaradaha iyo xubnaha FIFA inay ansixiyaan isbedelkan halka maalin ah ee la soo hormariyay waqtigii markii hore lagu ballamay inuu qabsoomo koobka adduunka oo sidoo kale la soo gabagabayn doono 18 bisha December markii hore tartanka koobka adduunka ee FIFA waxaa markaa lagu ballansanaa in ay furaan xulka difaacanaya koobka qaramada qaaradda Afrika ee Senegal iyo Netherlands ama Holland oo ku jira groupka A isla markaana waxaa markaa lagu ballansanaa inuu baasmo 21 bisha November maalinimo Isniina laakiin hadda waxaa la bedelay maalintii tartanka la ciyaari lahaa oo laga dhigay Axad 20 November hal maalinna la soo hormariyay sidoo kalena waxaa la bedelay xulalkii ciyaari lahaa ee Holland iyo Senegal waxaana markaa lagu bedelay xulalka Qatar iyo Ecuador haddii aan intaa kaga soo gudubno isbedelka markaa lagu sameeyay dhacdada koobka adduunka ee lagu qabanayo waddanka Qatar bisha November markan bal aynu eegno lacagaha la siin doono kooxda ku guuleysata tartanka UEFA Super Cup oo caawa finalkiisa ay ku ballansan yihiin kooxaha Real Madrid iyo sidoo kale Frankfurt oo markaa ka kala socda dalalka Spain iyo Jarmalka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caawa ku guuleysan karta koobkeedii ugu horeeyay ee kal ciyaareedkan marka ay naadiga Frankfurt isaga hor imaadaan finalka UEFA Super Cup oo lagu ciyaari doono magaalada Helsinki ee waddanka Finland tababare Carlo Ancelotti ayaa soo saaray diiwaanka ciyaartooydiisa ee uu ula safray Finland isaga oo markaa soo watay dhammaan xidigihiisa oo ay taan buuxa u yihiin isla markaana aan waxba ka soo tagan waxaana uu saxaafadda u sheegay tababare Ancelotti in markaasi ay sameyn doonaan wax kasta oo suuragal ah si ay koobkan ugu guuleystaan xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa markaa lacaga badan siin doona kooxda ku guuleysata koobkan hase yeeshee Real Madrid waxaa ka sokow lacagtaasi ay qaadan doonto haddii ay koobkan ku guuleysato uu u yeelanayaa koobkani qiimo kale oo gaar ah waxaana Los Blancos ay ka mid noqon doontaa kooxaha ugu badan ee ku guuleystay koobkan haddii markaa ay caawa gacanta ku dhigto Barcelona iyo AC Milan ayaa min 5 jeer ku guuleystay koobka UEFA Super Cup-ka halka Real Madrid ay 4 jeer hore ugu guuleysatay waxaana caawa ay ku biiri doontaa haddii ay hanato koobkan kooxaha min 5 jeer ku guuleystay amaba haysta koobkan haddaba imse lacag ah ayaa la siin doonaa kooxda ku guuleysata UEFA Super Cup Real Madrid iyo Eintracht Frankfurt ayaa markaa ku ballansan tartanka UEFA Super Cup-ka finalkiisa waxaana ay heli doontaa kooxdii adkaata caawa lacag gaaraysa 5 milyan oo euro
oo UEFA ay u shubi doonto haddii markaasi kooxdaasi ay koobka gacanta ku dhigto ama ku guulaysato. Los Blancos oo ay tahay kulankeedii koowaad ee tartan caalami ah ay markaasi dheelayso xilli ciyaareedkan ayaa tababaro adag oo ay isugu diyaarinayso ku jirtay toddobaadyadii la soo dhaafay, iyagoo ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu kadib markii ay ka soo laabteen safar ay ku tageen waddanka Mareykanka, halkaasoo ay ku ciyaarayeen kulamo ka tirsan isu diyaarinta xilli ciyaareedka ee saaxiibtinimo. Laakiin Frankfurt ayaa imaanaysa magaalada Helsinki caawa iyadoo markaa garoonka soo geli doonta iyagoo murugaysan guuldarro 6 gool iyo gool ah oo Sabtidii ay kala kulmeen naadiga Bayern Munich ee waddanka Jarmalka oo si xun u xasuuqday. Madaxweyne Florentino Perez ayaa la sheegay in uu lacagtani u arko mid muhiim u ah kooxdiisa oo markaa la rumaysan yahay in sanadihii ugu dambeeyay ay samaysay kobac dhaqaale oo badan, isla markaana qasnadeeda ay ku jirta lacago badan oo ay ugu talagaleen inay kula soo saxiixdaan Kylian Mbappe sanadkii hore, sidoo kalena ay isku dayeen kuna fashilmeen inay soo qaataan xagaagan. Labada kooxood ee koobkan markaasi ku kala guuleysanaya kuna tartamaya caawa ee Real Madrid iyo Frankfurt ayaa isugu dambeysay inay tartan rasmi ah wada ciyaaraan 1960kii oo sidan oo kale koob finalkiisa ah ay markaa ku kulmeen, isla markaana 7-3 ay ku adkaatay Los Blancos, waxaana waqtigaasi 7 gool u dhaliyay Real Madrid 2 ciyaaryahan oo midna 3 dhaliyay midna uu dhaliyay markaa 4 gool, waxaana waqtigaasi ku guuleystay Real Madrid koobka. 2 jeer oo kale ayay is arkeen labadani kooxood, laakiin kulamadaasi waxay ahaayeen kuwo saaxiibtinimo. 1960kii kulankii ugu dambeeyay ee is arkeen 7-3 ay ku adkaatay Real Madrid ayaa ah kulanka kaliya ee labadan kooxood ay hore u ciyaareen taariikhdooda tartan rasmi ah. Kulanka kalena caawa ayuu markaa ka qabsoomi doonaa magaalada Helsinki ee waddanka Finland. Haddii aan intaa kaga soo gudubno lacagta ay heli doonto kooxda caawa hanata tartanka UEFA Super Cup, bal markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dhanka suuqa kala iibsiga xidigaha ee wargeysyadu ay qorayaan. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay markaa gacanta ku soo dhigtay Frenkie de Jong, isla markaana uu ku soo jeedo horyaalka Premier League Ingiriiska. Chelsea ayaa heshiis la gaartay Barcelona oo markaasi ay doonayso kana rabto inay kala soo wareegtay xidiga qadka dhexe ee Frenkie de Jong oo horey isaga diiday Manchester United, waxaana uu laacibkani u soo xirxiran doonaa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League. Chelsea iyo Barcelona ayaa gaaray heshiis 67.6 milyan oo geni ku kacaya, waxaana taasi ay jug weyn ku tahay Manchester United oo ilaa iyo haatan aan ka quusanin saxiixa Frenkie de Jong oo ahaa bartilmaameedkooda koowaad ee suuqa kala iibsiga xidigaha xagaagan. Inkastoo Frenkie de Jong uusan doonaynin inuu ka tago xagaagan garoonka Nou Camp, haddana Barcelona ayaa markaa ku cadaadinaysa inuu tago si markaa ay u hesho lacago u ogolaada in ay diiwaan geliyaan saxiixyadii ay sameeyeen xagaagan. Wargeyska Sport ee ka soo baxay Spain ayaa helay xogta heshiiska labada kooxood oo markaa ku kacaya 67.6 milyan oo ganiga sterlinka ah, hase yeeshee weli waxaa socda wadaxaajoodyada oo markaa maraya marxalada gabagaba ah. Barcelona ayaa sidoo kale u ogolaatay Chelsea inay si toos ah ula hadli karto laacibkan, waxaana jiray xiriir toos ah oo ay Blue la sameysay Frenkie de Jong oo maalmihii ugu dambeeyay ay markaasi ka wada hadlayeen sida uu xidigani ugu soo dhaqaaqi karo galbeedka magaalada London, iyadoo tababare Thomas Tuchel oo hogaamiyay Chelsea uu isku dayayo inuu ku qanciyo Frenkie in uu markaa ku soo biiro garoonka Stamford Bridge. Manchester United ayaa la fahamsan yahay in sida Chelsea oo kale ay mar hore heshiis la soo gaartay amaba la sii gaartay kooxda kubadda cagta Barcelona, isla markaana ay kala heshiisay iibka Frenkie de Jong, balse laacibkani uu diiday inuu tago garoonka Old Trafford si uusan u seegin tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan maadaama ay Red Devils ka maqan tahay. Tuchel iyo kooxdiisa ayaa la sheegay inay hadda markaasi ay go'aankii ugu dambeeyay ka sugayaan Frenkie de Jong oo ay rajeynayaan inuu u ogolaan doono inuu yimaado magaalada London, maadaama Barcelona aysan si wanaagsan isugu dhaweyn ciyaaryahanka Frenkie de Jong, isla markaana ay baarka ugu hanjabtay inay maxkamad la tiigsan doonto iyadoo lagu eedeynayo in heshiiskii uu saxiixay sanadkii 2020 uu ahaa mid sharci darro ah. Waxaa kale oo xiriirka laacibkan iyo Barcelona sii xumeynaya, isla markaana sii kala fogeynaya in ilaa iyo haatan aan la siinin mushaar gaaraya 17 milyan oo ganiga sterlinka ah oo uu ku leeyahay kooxdan, taasoo Juan Laporte iyo Xavi Hernandez ay markaasi ka warwareegayaan inay bixiyaan. Hagaag saaxiibayaal, si uusan noogu dheeraanin muuqaalkeena, waxaan markan soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyadu ay ka qorayaan suuqa kala iibsiga xidigaha. Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxay Ingiriiska waxa uu warinayaa in Manchester City ay beenisay wararka sheegaya in Barcelona ay ka aqbashay dalabkii ay ka soo gudbisay Bernardo Silva.
wararka ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in Manchester City iyo Barcelona ay markaa ka heshiiyeen iibka ninka la yiraahdo Bernardo Silva oo markaasi 42 ilaa 46.5 milyan oo pound markaasi ay ku kala qaadanayaan. sheekadaasna waxaa qoraya wargeyska la yiraahdo Managing Barca. dhinaca kalena wargeyska The Sun ee Ingiriiska ka soo baxa ayaa warinaya kadib markii ay isaga hartay saxiixa Arnautovic oo Bologna markaa ka tirsan oo ay jamaahiirteedu ka soo horjeesteen. Manchester United ayaa haatan dareenkeeda u weecinaysa dhinaca Ismail Sarr oo markaa ka tirsan naadiga Watford. United ayaa loo soo bandhigay saxiixa Alvaro Morata oo hal sano uu ka harsan yahay qandaraaskiisa Atletico de Madrid. sheekadaasna waxaa qoraysa ESPN. jaradda The Telegraphna waxay warinaysaa in xidiga garabka uga ciyaara PSV Eindhoven ee Cody Gakpo uu yahay weeraryahan kale oo Manchester United ay xiiseynayso, balse haddii ay doonayso waa in ay dalab ku kacayo 35 milyan oo pound ay ka soo gudbiyaan. AC Milan iyo sidoo kale Arsenal ayaa wada hadallo ka yeeshay saxiixa Sandro Tonali, balse kooxda Talyaaniga ah ayaa 46 milyan oo ganiga sterlinka ah ku doonaysa iibka laacibkan. wargeyska Mail Online ayaana sheekadaasi qoraya. jaradda Metro ayaa iyaduna waxay warinaysaa in Arsenal ay Liverpool ku garaacayso saxiixa 33 milyan ee gani ku kacaya ee xidiga naadiga Villarreal ninka la yiraahdo Yerry Pino. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa toddobaadkan markaasi go'aamin doonto haddii ay sii wadi doonto isku dayga saxiixa weeraryahanka Barcelona ee Pierre-Emerick Aubameyang. 442 ayaa sheekadaasi qortay. waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso. waxaana ahay Haarun Yuusuf Qasaaro. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.